السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسمية عبد الله أو صون نقطي. كسر دقو قلك. Welcome back. هذا قلك بعد channel. ما أنت وحويا قيبتي لبعض علوشة كهضيسي عافماتك علوشة مركز صور دواذا كليين. رمضان مبارك طبعا كده بالقول جرا إله سبحانه وتعالى إنه لكل نسي وليلة القدر كاكو إله هدن ورافي إله سبحانه وتعالى نقدقو. And جزاك الله خيرا for the subscribe. Thank you so much for your support. كون نوع عصب welcome. And آدي آد بادوغم هالسنتهين لسعود كان لسعودين feedback comments كآدك وقروح البضن. جزاك الله خيرا آدي آد بيرجل نسائنا إن شاء الله تعالى إذن صو دياريو برنامج نوعا وكلا. اوكي نقدر قلنا ان شاء الله تعالى ان كل وقت عباده الوتر والعباده السنيه مركا ان شاء الله تعالى دقيقات كستو هبينكي كميده waa muhiim inaan ka faa'iideysano caafimaadkuna waa muhiim laakiin insha Allah waan idin soo koobiyaa si insha Allah تعالى cibaadada ugu noqotaan. Okay so maanta waxaan rabaa inaan kala hadlo in probiotics iyo prebiotics. حيهين probiotics iyo prebiotics وحويان علوشنا وحي leedahay in bacteria xun iyo bacteria fiican. qofku markuu cuntadu ka xun tahay cunto mataqaana dilaysa bacteriada fiican uu qofkaasi cuno ama noloshiisa yacni diet fiican aanu lahayn waxa dhacaysa bacteriada fiican ayaa yaraanaysa. marka yaraato waxa badanaysa bacteriada xun markay badato calooshii dhibaato badan bay u keenaysaa xanuuno badan baa ka dhasha. marka insha Allah tacaala waxyaabo badan baan idin hayaa oo sidii aad bacteriada fiican calooshiina aad ugu kordhin lahaydeen si idinku caloosha ugu filnaato maadaama oo maxaa la yiraahdaa cuntooyinka aan cunana aan ahayn cuntooyin bacteriada fiican kobciya oo aad iyo aad buu damage u gaarsiisaa. waxa damage gaarsiinayna insha Allah tacaala waan ka wada hadli doonaa. marka aan guda galno probiotics ku waxa weeyaan prebiotics iyo probiotics labaduna way isku nool yihiin. prebiotics waxa weeyaan cuntada probiotica ku nool ayaa ku nool prebiotica. labadana cunta laga heli karaa qofka haduu dietkiisu fiican yahay cuntada dabiiciga ah iyo qudaarta iyo cuntooyinka mataqaana aan karsanayn iyo qofku ka heli karaa bacteriada fiican hadii calooshiisu bacteriada fiican ay dhinto. laakiin qofkii hadii aanu haysanin cuntooyin uu ka heli karo intuu samaysto uu cuni karo waxaan rabaa inaan tuso yacni dawooyin uu qofku liqi karo si uu mataqaana bacteriada fiican kor ugu soo qaado insha Allah tacaala. waxaaba yar baan idin sawiray aan rabay inaan anigu artist ma ihi wax ma sawiro marka aygu qoslina marka insha Allah tacaala tan waxa weeyaan tusaale ahaan ayuun baan rabay inaan idin tuso because some people are visual learners and tan waxa weeyaan bacteriada fiican markay caloosha ku badanto kale ta akhtarka ah waa bacteriada fiican. tan cas ama guduudanna waa bacteriada xun. waana u jeedaa sawirkan inay bacteriada cas ay aad u yar tahay. qofku markuu sidan caloosha bacteriada fiican akhtarkii ku badan tahay caafimaadkiisu ma sha Allah aad buu fiican yahay calooshiisa aad iyo aad buu caafimaad qabtaa. laakiin qofka hadii bacteriada xun ay ku badato oo ay ta fiicanna ku yaraato sidan ay u eg tahay saasay u eg tahay oo bacteriada mataqaana tan cas waa tii xumayd tan akhtarkana waa tii fiicnayd. qofku markay bacteriada xun calooshiisa ku badato waxa ka lumaya miisaan ma yeelanayso wixii iskuma dheelitirna. marka qofkii waxa soo gaadhaya dhibaatooyin badan oo digestive issues ayaa qofka ku imanaya. أنا واحد مصورة مركا it was a simple example so إن شاء الله تعالى وأسلفه هني بكتيريا دو علوش بكتيريا أي لا ذهاي مدحن إيه مدفيعن
tafiican cuntooyinka laga helo waxa weeyaan yogurt kimchi yogurt oo ah I think waa caano la garooriyamiya I don't know yogurt wax Soomaali lagu yidhahdo honestly unfortunately tan waa mid organiga oo waxaa laga sameeyey doog kaliya cunta dabadaha waa taqaanaa oo loda waxaa jirta waxaa la siiyaa qamadi iyo haruur iyo waxyaabo aan loogu talagelin cunto marka waxa fiican yogurt ka samaysan loda cunta dooga kaliya insha Allah ta'ala marka that's why it says grass fed yogurt from grass fed cow yogurt okay laakiin iska ilaaliya yogurtka sidan oo kale ah magaceeda waxba usii fiirsanaa muhiim aha magacu laakiin muhiimadu waxa weeyaan inuu qofku arko waxyaabahan strawberry ku jiraan iyo different flavorska iyo waxyaabahan sonkorta aad iyo aad ugu badan sonkortuna bacteriada xun bay caloosha ku badisaa okay 30 grams of sugar ayaa taa ku jira yacni xasbi allah wa nicmal wakiil waxa weeyaan it's too much aad iyo aad bay u badan tahay marka waxba kuma tarayso marka waxaad u baahan tahay yogurtka plain yogurt baad u baahan tahay waxyaabahan flavorska sonkorta lagu daray kalarada lagu daray waa kan iyo kan iska ilaaliya insha Allah ta'ala taasi waa taa yogurt right kimchi waa maxay kimchina waa tan kimchi probiotic caloosha bacteriada fiican ayay kordhisaa kabaniye badan baa kala sameeya ma aha muhiimadu inaad waxyaabahan intusi exactly aad soo iibsataan laakiin inaad magaca aad akhrisataan oo tii idinka anfacda ama idin gurigiinaba ku samaysataan tan guriga waad ku samaysan kartaan insha Allah ta'ala kimchi waxa weeyaan muxuu ahaa cabbage waa cabbage la qamiiriyey weeyaan oo inta la dhigay la qamiiriyey okay cuntooyinkii waa wadnaa cuntooyinka kale aad ka heli kartaa waxa weeyaan cabitaankan la yiraahdo kombucha waa mar walba muhiimadu waxa weeyaan inaad organic wax walba aad iibsatid organic aad iyo aad buu caafimaadka ugu fiican yahay so kombucha tan waxa weeyaan kooskan ka soo iibiyey waa ginger sanjabiil iyo liin dhanaan bay ka samaysan tahay laakiin waxa ku jira 2 billion CFU probiotic cultures 2 billion oo bacteriada fiican ee caloosha u roon ayaa ku jirta halkii xababa markaas let me see waxa halkan hoose ku qoran aan rabay hadday culimo daawanayso videogan in insha Allah ta'ala ay commentiga igu soo qoraan inaga wacyigeliyaan haddii waxaan uu yahay in kan la cabi karo yuu xalaal yahay iyo inaanu ahayn su-aashan qabaan waxa weeyaan waxa hoosta kaga qoran due to fermentation this may contain traces amount of alcohol below 0.5% marka 0.5% in ka yar ayaa ku jirta oo alcohola marka Allahu a'lam insha Allah ta'ala wadaadada inoo soo sheegi in ay tahay xalaal laakiin iska hubsada okay laakiin probiotic aad buu ugu badan yahay waxaan tuunsanayn inay xalaal tahay laakiin Allahu a'lam insha Allah ta'ala wadaadada inoo soo sheegi ilaahay khayr badan siiyo intaas waa cuntadii okay maxaa yacnihi sid kuwan kale aan cuntada ahayn ee dawada ah oo la helaa waa maxay let me see mid waxa jirta biyo ah oo saasa acidophilus probiotics baa ku qoran anigu waxaan tan ka subsaday PCC I don't know if you guys can see magaca there you go talaagada ku jirta waa probiotic 9 strains of probiotics billions of life cells pure all natural formula full of amino acid profile marka aad iyo aad bay ugu fiican tahay qofkii aan yacni rabin inuu kinin laqo kale iyada oo liquida ayaad helaysaa okay qofkii doonaya inuu kinin laqo waa kan muhiimadu ma aha kan waa company magaciisa probioticsku aad bay u badan yihiin companiyada marka qofku inuu isagu
تي أنفع ذا وسو يبسده وقنعصة إن شاء الله تعالى أتبغى الرتان إن وحا كترته 14 billion active culture بعدين كترته تلنا لفتر كذا وحن كسيب سودان و PCC 8 strands of beneficial bacteria supports digestive health vegetarian capsule hubso هذا مركز سويب سنة سنة vegetarian هاي كسمة سنتها vegetable capsule سيانو قاربة ضفر لقسمة يسكو هبسو and okay so إن شاء الله تعالى إن عنتوين كا إن بكتيريا probiotic وحيكون نوشهاي إن وح اللي راح prebiotic أو عنتوين كلاجة هلو أي تهاي حرها موسكة بصشة in garlic, tonta, leeks, asparagus, soybeans and so on قارب ذن باتشرة قفكو عنتنا وكسميسان عنتنا وكعوني كرا وكهلي كرا إن شاء الله تعالى إن دوين كان كله وصيبسنا وكهلي كرا لبضبا إن prebiotics and probiotics بدن كبروبيوتيك بلو يبيتو كندا prebiotics كواحد كان يسأل like you know fiber كا and different types of foods مركا قفكو research بسمين كرا جوجل بتقولي كرتان إن شاء الله تعالى بواقع قرين باشرته إن شاء الله تعالى أنا مشهور أونلاين يعني آدي أدو بديهين فيديو بدنو أو آد أسي إن لكن السؤال هذا قبتين يسوقرة هدي أدون السنة نسيف يعني دين كوسيف هنسيو أو أن تنفهمين يسوع شيء إن شاء الله تعالى سانكو معني يعني قال لغة إنجليزية آدي أد يقول فضد لكن سومالي أنت إلهي قبري يعني دين كل شيء وكاس ما أنت محانس لبرنا محان برنا علوشو وحيل هذا هاي بكتيريا حن هي بكتيريا في عن probiotics prebiotics أو في عن iyo bacteria xun oo iyadu ma hubo magac bay leedahay laakiin ma hubo magaceeda wali magac loo sheegay ma maqlin laakiin waa bad bacteria baa la yiraahdaa su'aasha raba idin weydiiyo waxa weeyaan in bacteria xun ee caloosha ku badata ee cudurrada badan keenta in cuntadeedu waa maxaa badiya kayra fikir okay هذا كل شيء قوي يابسة بكتيريا علوشة بكتيريا حني علوشة كوبضتها وحكينا سنكرتا أياه كانتا مركب محلو بهاي إن سنكرتا إسكتشوتشنو سنكرتا وعنتها بكتيريا حن قفكي دوني إني علوشيسو أي عافيمات قبتو أي متقانا our gut is 80% of our immune system سبحان الله علوش وعافيماتك قفك بالآدنك بقول كي بس ديتن immune systemك إن لدقال لما شركة دفاع حنوندا مركا ومهم قفكو إن gut flora علوش the gut flora is healthy. It's very very important that you're eating healthy food, you're detoxing. It's very important إن محل هذا آدي أشكا أوجش قينيس عافيماتك واحد عنيسد آدي الأولانيسد أدعي لسنين وآدي أدم مهمتها علوشو عافيمات كيدو إله سبحانه وتعالى واحد يمود وديني عافيمات تامة إنتي حنوسنس إله سبحانه وتعالى عافيو أو دم داف أو قديقو إنتي عافيمات قبت إله سبحانه وتعالى أو قوضو كوي كل شكر نقان إله سبحانه وتعالى نقوض يالو إن آدي آد بردنكو سدعانية جزاك الله خيرا. Thank you so much for your support. Thank you for joining again tonight. إن شاء الله تعالى وحي سؤال القبطان يسوقرا and subscribe, like, comment إن شاء الله تعالى هدي like if you liked the video. نحالي هذا إن شاء الله تعالى share لو ذاك إن شاء الله ولا لا ذاك مسلم كا صومالي كهضلية سي أي يعني بإذن الله وقف إذا فيديو كان and yeah so there we go إن شاء الله تعالى أنت سعوا إنه نوجو إكتحي آدي بد أمهات سنتهين إن كلن كان اللباد إن شاء الله وكهاللي سعلوشة قيفتي اللباد إن شاء الله تعالى وإنت إيو إن كلن كان الدنبو حيصل إن بري إن شاء الله تعالى أما دور عشك بعد إن شاء الله. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.